سناشو waxay ku wada eedeysan yihiin qodobada 72 128 143 ee sharciga horumarinta iyo maareynta kalluumaysiga oo la akhriyay qodobka 71 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. inta aan guda gelin dhageysiga dacwadda maxkamaddu waxay ku baraarujinaysaa dadka ku sugan hoolka dhageysiga dacwadda iyo dhinacyadaba in maxkamaddu tahay mid u furan dhageysiga dadweynaha si waafaqsan qodobka 96 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. inta lagu guda jiro dhageysiga dacwadda waxa reeban wax kasta oo carqaladeyn kara habsami u socodka dhageysiga dacwadda sida wada sheekaysiga adeegsiga telefoonka la falgalka dacwadda iyo wax kasta oo dib u keeni kara habsami u socodka dhageysiga dacwadda. haddaba maxkamaddu waxay ku baraarujinaysaa dadka ku sugan hoolka haddii ay wataan telefono in ay damiyaan ama ay codka ka xiraan. waxay kale maxkamaddu baraarujinaysaa inta lagu guda jiro dhageysiga dacwadda cid kasta oo rabta in ay ka baxdo hoolka dhageysiga dacwadda uu ka socdo inay maxkamadda marka hore ogolaashiyo ay ka hesho si waafaqsan qodobada 98 99 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. fadhigii ku horeeyay maxkamaddu yeelatay 16 bishii 7 2023 maxkamadda waxa ay dhageysiga dacwadda dib ugu dhigtay codsi ka yimiday xeerlaalihii ku metelaya dacwaddan xafiiska xeerlaaliha guud oo maxkamadda ka codsaday in dib loogu dhigo sababo la xiriira cadaymihii maxkamaddu markaasi dalbatay oo aanan u diyaarsanayn si waafaqsan qodobka 101 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. haddaba maxkamaddu waxa ay fursadda koowaad siinaysaa si waafaqsan qodobka 231 faqradiisa labaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xeerlaaliyaha ku metelaya dacwaddan xafiiska xeerlaaliyaha guud si uu soo gudbiyo cadaymaha uu ku cadaynayo in eedeysanayaashu ay soo galeen badda biyaha Soomaaliya isla markaana ay ka kalluumaysteen ka hor kalluumaysiga lagu qabtay sida xafiisku